haddii aynu eegno 8 garoon oo ay dalka Qatar u diyaarisay koobka dunida ee sanadkan 2022 ka socda dalkaasi magacaanta iyo tirada dadka ay qaadi karaan garoomadani waxaan ugu horreysiinaynaa garoonka Al Janoub oo qaadaya 40,000 oo qof sidoo kale garoonka Al Tamim oo isaguna qaadaya 40,000 oo qof Education City oo isaguna qaadaya 40,000 oo qof Lusail oo isaguna qaadaya 80,000 oo qof Al-Bayat oo isaguna qaadaya 60,000 oo qof halka Ahmed bin Ali uu qaadayo 40,000 oo qof halka isaguna qaadayo International Khalifa 45,000 oo qof Ras Abu Abud ayaa isaguna qaadaya 40,000 oo qof dalka Qatar dhaqaale aad iyo aad u badan ayaa kaga baxay marka loo eego dalalkii hore ee dunida ee soo qabtay koobka adduunka oo la bilaabay sanadkii 1930 waxaa la ciyaaray 22 jeer haddaba dalka Qatar waa dalkii ugu badnaa ee ku bixiyay dhaqaalihii ugu badnaa abid dalka Qatar waxa uu horay dhaqaalaha ku baxay garoomadan casriga ah iyo sidoo kale goobo tamashlayaal iyo hoteelo dhaqaale gaadhaya 220 bilyan oo dollar dawladda Qatar oo ah dal qani ah aana dal bad ahaan aad u yar ayaa dhaqaalahan uga faa'iideystay dhinacyo kala duwan oo ay ka mid tahay inuu dalka Qatar uu noqdo marka koobaad dal caan ah oo si buuxda loo yaqaano dalkan wuxuu sidoo kale socodsiiyay oo meel mariyay diinta islaamka iyo shuruucda dalkaasi u yaala oo aan marnaba laga tallaabin intii uu socday koobka adduunka dhammaan shuruucda dalkaasi u yaala ayaa ilaa haatan sidii loogu talagalay u socdaa iyagoo ay dhinaca kalena cabaadayaan dalalkii reer galbeedka oo ku dhaliilaya dawladda Qatar siday u maamulayso koobka adduunka FIFA ayaa ku raacday Qatar go'aamada iyo shuruucda dalka inaan waxba laga bedelin oo sidaasna uu ku socdo koobka adduunku dawladda Qatar waxay dhexda u xidhatay isla marhaantaana ay geed gaaban iyo geed dheerba u fooshay sidii ay markaasi ay u noqon lahayd dal aan haba yaraatee looga jaxanjaxin inuu waxyeello soo gaadhsiiyo diintiisa islaamka oo uusan dabadhilif u noqon wadamo reer Yurub iyo reer galbeeda sida ay dawladda Qatar u maamushay koobka adduunka dalalka islaamka oo dhan ayaa aad ugu farxay kuna faanay iyadoo ay taasi tahay waxyaabo ku dayasho mudan oo aad iyo aad muhiim u ah marnaba ma habboona in dal kale loo noqdo dabadhilif sidoo kale wadamada reer Yurub oo iyagu u arka inuu dhaqankooda iyo shuruucdoodu adduunka oo dhan ka shaqeyso ayaa laga diiday gebi ahaanba dawladda Qatar waxay awood u yeelatay inay dhaqaalaheeda ku maamusho isla marhaantaana ay jilibka ugu aasato inaysan haba yaraatee saaxiibnimo iyo garab dhawaasho ka raadinaynin reer galbeedka markii la furayay koobka adduunka xafladda oo ahayd mid dhif ah oo dunida soo marta dawladda Qatar waxay filaysay inay ka soo qayb geli doonaan wadamo fara badan oo xataa ka mid yihiin reer galbeedka madaxdooda laakiin hal mar ayay u jareen inkastoo ay ka soo qayb galeen madaxda dunida islaamka inta badan wadamada ka agdhow iyo kuwa saaxiibada gaarka yihiin iyo wadamada gobolka khaliijka run ahaantii Qatar taasi umaysan arag wax weyn laakiin waxa markiiba soo taray cambaaraynta dhaleecaynta iyo sidoo kale ka hor imashada shuruucda wadanka Qatar iyo inay cadaadis saarayso arrimo fara badan balse FIFA World Cup ee maamusha iyo madaxweynaheeda ayaa isku raacay in la dabaqo shuruucda dalkaasi iyada oo meesha laga saaray waxyaabo badan oo ay wateen reer galbeedku tusaale ahaan wadamada reer Yurub 8 dal ama 8 xul qaran oo u ciyaarayay wadamada Yurub ayaa laga saaray inaysan soo xidhan calaamada qoomuluudka inta lagu guda jiro gudaha ciyaaraha garoomada wadanka Qatar